Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gabadhan idiin muuqato waxaa lagu magacaabaa Jason Lee. 11 sano ayadoo jirtay la afduubtay, waxaana la weysanaa muddo dhan 18 sano. Ninkii afduubtana kama aysan baxsan, iyadoo heshay fursado ay ku baxsan karto. Soo dhawaada. Magacaygu waa Maxamed Nabiil. Maanta waxaan muuqaalkan idinkugu soo gudbinayaa qisada gabadhan. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Jason Lee, waxayna ka soo jeedaa dalka Mareykanka. Taariikhdu markay ahayd 1991 waxaa ku dhacday qiso aad nolosheeda u bedeshay. Xilligaasna waxa ay jirtay 11 sano. Gurigeeda ayay ka soo baxday iyadoo u socotay iskuul, waxayna soo aaday meesha baska laga raaco. Intaysan soo gaarin meeshii baska laga raaci lahaa, wadadan ay ku socotay waxaa hor istaaga gaari. Waxay u mareynaysay qof wax weydiinaya, way soo aaday. Markii ay soo aaday ninkii gaariga saarnaa, wuxuu ku qabtay biskoolada korontada oo ay adeegsadaan askarta. Way miir daboolantay markii dhowr mar uu ku dhajiyay, gaariga ayuu soo saaray. Gaarigana kaligiis ma uusan saarneen oo haweeney ayaa la saarneed. Waxaa markaas arkayay gabadha hooyadeed ninka qaba. Wuu ku soo orday laakiin gaarigii waa uu ka baxsaday. Kadib dhacdadii waxay u sheegeen askarta gaariga lagu afduubtay gabadha nuuca uu yahay, xilliga la afduubtay iyo meeshii lagu afduubtay ayay u sheegeen. Kadibna wax war lagama helin. Ninka gabadha afduubtana waxaa lagu magacaabaa Philip. Waxa uu ku xukunaa xabsi ah muddo 50 sano ah. Arrinta lagu soo eedeeyna waxay ahayd isagoo wada maraya ee waxa aragtay gabar gaari wadata. Way ku soo leexatay waxayna isku dayeysay inay caawiso oo gaariga ay saarto. Kadib markii uu gaariga u soo galay, wuxuu ku dhahay laba mid kala dooro, in aan ku dilo iyo in waxa aan doonayo aad ii samayso. Kadibna waa jir dilay waana kufsaday. Booliiska ayana soo qabteen, xabsi ayana lagu xukumay muddo 50 sano ah. Laakiin nidaamka meesha ka jira oo daciif ahaa, ninkan haweeneyda garsooraha ka ahayd meesha ayaa xabsiga ka sii deysay markii uu xabsiga ku jiray 12 sano. Aan u soo laabanna marka qisada gabadha. Ninkan gabadha afduubtay waxaa gaariga la saarnaa markii gabadhu afduubanayay xaaskiisa, waxaana lagu magacaabaa Nancy. Iyada ayaa u soo doortay gabadhan inuu afduubto. Kadib gabadha markii la afduubtay, hooyadii gabadha dhashay aad ayay u murugootay. Dadkii deriska ah ayaa xitaa u imaadeen oo kala qayb qaateen raadinta gabadha. Waraaqo oo sawirkeedu ku daabacan yahay ayaa meel walba lagu dhajiyay. Laakiin waxaas oo dhan waxba sooma aysan kordhin oo gabadhii waa la waayay. Ninkii gabadha soo afduubtay markii uu gurigiisa keenay, indhaha ayay ka xirneed, gacmahana way ka xirneed. Gurigiisa qol gadaal ku yaala ayuu geliyay oo qaab studio kale u samaysan. Haddii gabadha ay qaylisay xitaa aan waxba laga maqlayn. Markii uu qolka soo geliyay waxuu ku dhahay ha isku dayin inaad ka baxsato, eeyo ayaa banaanka jooga, waan kugu diraya haddii aad isku daydo inaad baxsato. Sababtoo ah gabadhuna aad ayay u yareed oo waxay ahayd 11 sano jir, marka aad ayay u baqday, iyaduna iskuma aysan dayin inay qayliso ama ay isku daydo inay baxsato. Gabadha la afduubtay waxay tiri xitaa ma aan awoodin inaan ilinta iska tiro ama aan ooyo mararka qaar cabsi daraadeed oo aan ka baqayo ninka. Kadibna waa uu kufsaday, halkaas ayuu ku haystay, aad ayuu noo cabsi geli jiray. Sababtoo ah gabadhu waxay ahayd 11 sano jir, isaguna waa nin 40 sano jira, aad ayuuna uga weynaa. Qolka uu galiyana waxa uu ku haystay muddo gaaraysa 18 sano. Gabadhuna aad ayay u dareemaysay kali ahaansho iyo cabsi. Xitaa wax ay ku ciyaarto qolku ma uusan soo gelin maadaama ay gabar yar ahayd. Mararka qaarna si uu xaajadiisa u guto waxa uu ku dhahay haddii aad warkayga yeesho waxaan kuu keenayaa macmacaan ama cuntooyinka ay jecleed sida McDonald oo kale. Sanadooyin badan oo ay kalinimo ku jirtay, kadib markii uu ku kalsoonaaday waxa uu u keenay TV si ay u daawato, laakiin waa uu ka xiray qaybta wararka iyo waxyaabaha kale ee la midka ah. Dadkii qaraabada ama deriska la ahaana kama aysan niyad jabin inay raadiyaan oo waa ay dadaalayeen. Meel walba ayaa laga raadinayay, waddo walba oo u fududeynaysa ama ay ku heli karaan ayay u marayeen si gabadhaasi loo helo. Dhinaca kalena gabadha ay raadinayaan dadkaas qol ayay ku jirtaa oo cidna kama war hayso. Xitaa heer waxa ay gaartay cayayaanka yararka ah ee qolka u soo galaya in ay barato oo magacyo ay u bixiso lana saaxiibto. Sanadooyin kadib ninka gabadha soo afduubtay, gabadhii waa uu ku kalsoonaaday. Wuxuu la sameeyay inuu qolkii ka soo bixiyo una ogolaado in guriga qaybihiisa kale ay imaan karto, soo galgali karto. Dhinaca kale ninkan maadaama lagu xukumay 50 sano oo xabsiga laga soo daayay, askartu iskama aysan dhaafin oo gurigiisa control ay ku hayeen, dhaqdhaqaaqiisa waxyaabaha uu sameeyo way control jireen. Gurigiisana waxay imaadeen inta gabadhu ku haystay marar aad u badan, kumana aysan baraarugin in gurigan gabar yar lagu haysto oo ninkan soo afduubtay. Way imaanayeen, su'aalo ay weydiinayeen, kadibna way ka tagayeen, mana ku baraarugin. Muddo kadib ninka gabadha soo afduubtay oo lagu magacaabo Philip, askartu waa ay qabteen, xabsiga ay geliyeen. Laakiin mid ogow, sababta xabsiga loo geliyay maahan gabadha uu soo afduubtay, arrin kale ayaa lagu qabtay. Askartu waxay baaritaan ku sameeyeen dhiiggiisa, kadibna waxa ay ka heleen daroogo, sidaas ayaan xabsiga loo geliyay. Waxaana uu xabsiga ku jiray muddo bil ah, waa laga soo daayay. Haddana gabadhii ayuu u imaaday, sidii ayuu guriga iskaga haystay oo iskaga kufsanayay. Gabadh yarta waxay ka codsatay markii dambe inuu u keeno buugaag ay ku qorato, xusuus qor ay ka dhigato, wax ku qorato. Waqti yar kadibna gabadhii uur ayay qaaday. Waxaana la soo gaaray bilooyin yar kadib waqtigii ila lahayd, bal suurayso gabar yar oo aan wax khibrad u lahayn dhalmada iyo sida wax loo dhaliyo, haddana qol ku xiran. Labada qof ee qolkan ku soo xirtana, ninkan iyo naagta isqaba ee qolka ku soo xirtana, iyaguna khibrad uma lahan.
kadib gabadha qolka ay iskaga xireen halkaas ay ku xanuunsanaysay oo ay ku dhibtoonaysay foosha. markii dambe tv-ga ay wax kasoo daawadeen, macluumaadka ay tv kasoo daawadeen ee ninkan iyo xaaskiisa gabadhii ku dhaliyeen. markan gabadha yarta waxay heshay cunug ay weeshato iyadoo ay hooyana u tahay. halkaas ayay ku haysatay cunugii 3 sano kadibna haddana waxay dhashay cunug kale. 2 cunug ay markaan saan ku haysataa. ninkan askarta gurigiisa waa imaanaysaa, mana arkayaan waxyaabahan gurigiisa ka socda iyo dhibaatada gabadhan yarta gurigiisa ku haysata. ninkan gabadha soo afduubtay markii dambe waxa uu sameeyey gabadhii stuudiyihii qolkii ahaa iyo guriga ayuu kasoo bixiyey. guriga gadaashiisa meel ah oo bannaan ah, beer yarna iska ah ayuu gabadhii keenay si ay markaan bal qoraxda iyo wax u aragto. markuu sidaas samaynayana waa sanadooyin badan kadib. labadeeda caruur ayayna baraysay waxyaabaha iyadu ay taqaanay oo ay horay iskuulka ugu soo baratay ama ay buug ka akhrisatay. maalin maalmaha ka mid a iyagoo bannaanka jooga, caruurtii iyo gabadha iyagoo bannaanka jooga, askar ayaa ninka gurigiisa imaatay. kadibna waxay arkeen caruurta iyo gabadha, way weydiiyeen. markaas wuxuu ku dhahay wiil walaalkay ayaa dhalay caruurtan, marka safar ayuuna ku maqan yahay, intuu maqan yahay ayay la sii joogay aniga. askartii marka wuxuu ku qanciyey sida been ayuunu sheegay. askartuna waxay ahaayeen iyaguna kuwa caajisluyaal ah oo baaritaan kuma aysan samaynin, hore ayay uga socdeen, mana aysan ku fikirin ninkan xabsi 50 sano lagu xukumay, dhibaatana uu geysan karo. arrinta kaloo la yaabka waxay tahay dadka deriska ah ayaa waxay arkeen gabadhan iyo caruurteeda oo bannaanka jooga. waxay ka warhayeen ninkan xaaladiisa. kadibna askarta ayay la xiriireen, waxay ku dhaheen ninkan caruur ayuu haystaa, laakiin askartu way iska indha tireen oo baaritaan kuma aysan samayn. sanadooyin kadibna waxa uu ogolaaday ninkii gabadha soo afduubtay in ay bannaanka u raacdo oo meelaha bannaanka ay wada aadaan ayuu u ogolaaday. laakiin dad badan waxay isweydiinayaan sababta maxay tahay gabadhan ay u dhihi weysay markay bannaanka u soo baxday oo kale, ama dad ay aragtay ninkan waa ay soo afduubtay haliga qabto, sababtay u dhihi weysay maxay tahay? sababtoo ah iyadoo yar ayuu gabadhan soo afduubtay, qol ayuu ku xiray, sanadooyin badan qol ayay ugu xirneed. marka gabadhu waxay u baqaysaa, nafsiyahaan ayay u baqaysaa oo waxay isleedahay dadka haddaad u sheegto ama isaga kuu sheegaan oo haddana ku soo qabtaa, qolkii kugu celiyaa, bannaankan uusan kuu soo bixin. marka sidaas ayay u baqaysaa, mana aysan awoodin inay dhahdo ninkan ayaa soo afduubtay. muddo kadib ninkii gabadhan soo afduubtay oo lagu magacaabo Philip waxa uu furtay shaqo ayuu furtay meel madbacada oo waraaqaha iyo ama business card wax lagu daabaca ayuu furtay. gabadhii uu soo afduubtay oo lagu magacaabo JC ayuuna ka shaqaaleysiiyey. markii uu baray kadib kombiyuutarka iyo si u shaqaynayaan waxyaabahaas ayuu barbaray, meesha ayuuna shaqo ka siiyey. wuxuuna ku dhahay waxyaabahan aad daabacaysa iyo wax si guud waxaa samaynayso dhan waan la socdaa, iska jir inaad wax qalada samayso ama aad dhahdo caawiyo kale waxaas ama waraaqaha ku qorto, iska jir, waxaa daabacayso dhan waan la socdaa. 2009 waa uu soo baxay, jaamacad ayuu imaaday, waxa uu qaybinayay waraaqa oo ay ku qoran yihiin diintiisa iyo isagoo dad kale ugu yeeray diintiisa inay qaataan oo kale ayuu imaaday. waraaqihii ayuu qaybinayay. kadib 2 askari oo ka shaqaynaya jaamacadda ayaa waxay arkeen 2 gabdhood yar ay arkeen, kadibna way ka shakiyeen arrinka. waxay la xiriireen FBI-da. ninkan ayay soo qabteen, meel ayay geeyeen, su'aalo ayay weydiiyeen, gabadhii iyo caruurteeda ayay wadeen, iyadana meel ayay geeyeen, su'aalo ayay weydiiyeen. waraysi waqti badan qaatay kadib ninkii waa uu qirtay inuu gabadhan soo afduubtay, 2 caruurna uu ka dhalay. kadib waxaa la soo qabtay haweeneydii ninkan uu qabay, labadoodana waxaa lagu xukumay xabsi gaaraya 400 oo sano. waxaa la dhihi karaa xabsi daa'in ayaa lagu xukumay. JC kadib waxay ku dadaashay in nolosheeda ay bedesho oo waxyaabihii ay soo martay hilmaanto, caruurteedana ay si fiican ay u korsato. dowladduna waxay siisay lacag dhowr milyan ah maadaama ay dayaceen, marar badanna la soo ogeysiiyey. runtii qisadan aad ayay u xanuun badan tahay. inta ayaan ku ekeenaynaa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janaalka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada. mahadsanidin.